بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما هذا إلهي با إسكالي ونمهد علينا سبحانه وتعالى وعن ربا هالكان أنيقو أفايانكي دينا عبرها بالشدة بلوين تهبر قدير إنا أن أمهد عليو مامولكا دولة قبليت كقل مدوب هولقل أي كبل عبين ديقانه هوسي ماذا دقموينكا بلانبل عابدواق يحر عليه oo ay burburin ku sameeyeen baraago macmal ah ee dhul balaarsi ah ee ay wadeen beelaha halkaas degan ayna ku kala riixanayeen dhulka sida aad ogtihiin dowlad goboleedka Galmudug waxa ka jira dagaal beeleedyo dhawaana waxa ka jirtay abaar aad u baxsan hase yeeshee ilaahay mahadiis ilaahay baan ku shukrinaynaa waxa halkaas ka da'ay raxmadii ilaahay roob fiican ayaa ka daay halkaas roobkii markuu daay waxay bilaabeen sidii caadadii lagu yaqiinay beelaha gobolka degan in ay bilaabaan kala jiidasho dhinaca dhulka ah waxay bilaabeen inay meelihii dhigaan baagag macmal ah inay baraaga ka qodaan oo godad ka qodaan ayay bilaabeen hase yeeshee ciidamada amniga ee dowlad goboleedka Galmudug booliskooda ayaa waxay isugu yimaadeen degmada Cadaado waxay ka kala yimaadeen degmada Gallisoor degmada Gaalkacyo magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug degmada Gallisoor degmada Xeraale degmada Caabudwaaq degmada Cadaado degmada Godinlabe caasimada Dhuusamareeb intaas ayay ka yimaadeen ciidamadaas booliska ah boolisku intaas markay ka yimaadeen waxay isugu yimaadeen Cadaado waa la isku daray ciidamadii booliska ah waxay gaareen deegaanadii bacaha la dhigay dhammaan waxay jeexjeexeen bicihii macmalka ahaa ayay jeexjeexeen sidoo kale waxay duugeen baraagihii la qoday waxaan leeyahay waa tilaabo horay loo qaaday waxaan ugu hambaliyaynayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo amarka bixiyay Axmed Cabdi Kaariye waxaan leeyahay tilaabo fiican baad qaadeen waan idinkugu mahad celinaynaa wax allaale iyo wixii wanaagsan oo maamulka iyagu uu ku tilaabsadana waa ka mahad celinaynaa waxa kale oo amaantaas u soo jeedinayaa odayaasha dhaqanka ee deegaanada magaalooyinka Dhuusamareeb Caabudwaaq Xeraale Cadaado iyo Gaalkacyo dhaqankooda ayaa arintan ka codsaday maamulka Galmudug codsigii odayaasha dhaqanka ka yimid si toos ah ayuu wuxuu ugu tagay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye kadibna wuxuu saaray amar madaxweyne ayuu ku bixiyay deegaanadaas in la burburiyo ku dhawaad 40 baag oo macmal ah oo baagaga dhul kala cishashada ah ayaa la jeexjeexay ku dhawaad 20 baraagoodna waa la xabaab oo goobihii roobku ka da'ay sababtoo ah maamulku wuxuu ka hortagay dhiig badan meeshaas inuu ku daato maxaa yeelay arintaas waxay dhali lahayd isku dhac qabaa'ilka dhexdiisa ayay dhali lahayd waa hubaa arinta uu ku tilaabada uu qaaday maamulka Axmed Cabdi Kaariye in ay tahay mid ka qayb qaadanaysa xasiloonida gobolka isdhexgalka bulshada iyo nabad ku wada daaqida deeqda Ilaahay siiyay waxaan rabaa inaan la hadlo beelaha degan Galmudug waxaan leeyahay ilaahay roob buu idin siiyay raxmadiisii buu idin siiyay ilaahayna nimcadayda ku shukriyo yiri ha ku kufrinina war nimcada ilaahay idin siiyay ha ku kufrinina oo ha isdilinina oo ha islaayinina nimcada ilaahay ku shukriya ilaahayna isaga baqa dhulku waa idin deeqa raxmadda ilaahay baa laho ilaahay baa raxmadda idin kugu shubay dhulkana ilaahay baa leh qof walbaana adduunka waa ka tagayaa raxmadda wada daaqa ilaahayna uga yaaba cid allaale iyo cidii ka qayb qaadata in dadku isdilo cid allaale iyo cidii ka qayb qaadata hurinta colaadaha sokeeye waxaan ugu baaqayaa maamulka Galmudug inuu gacan bira ku soo qabto ayaan ugu baaqaynaa walaalayaal ilaahay ka cabsada nabad ku wada daaqa nabad ku wada jooga aniga qof reer Galmudug ama qof Soomaaliyeed oo aan raba dhiigiisa in la daadiyaa ma jiro nin nabadoon ahaan ahay ma raba dadkaygu inay isdilaan waxaan rabaa nabad in lagu wada daaqo waxaan rabaa nabad in lagu wada joogo
haddii ilaahay idmo waxaan leeyahay maamulka galmudug waa ugu mahad celinaya waxaan halkaan uga mahad celinayaa taliyaha booliska deegaanka Galinsoor taliyaha booliska degmada Gaalkacyo taliyaha booliska degmada Caabudwaaq taliyaha booliska degmada Xeraale taliyaha booliska degmada Cadaado taliyaha booliska degmada Godinlabe taliyaha booliska degmada Dhuusamareeb magaala madaxda galmudug ee Dhuusamareeb dhamaantood ka baxay waxaan kale uga mahad celinayaa ninka leeyahay Ilka Case taliyaha guud ee booliska taliyaha booliska waa u mahad celinaya taliya ku xigeenkiisa waa u mahad celinaya waxaan leeyahay shaqaad qabateen waxa shaqo fiican baad qabateen shaqo loo baahnaa baad qabateen waxaan idin leeyahay mahad ha idinka gaadho aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaan halkaan uga mahad celinayaa odayaasha dhaqanka ee degmooyinka Cadaado Caabudwaaq Gaalkacyo Galinsoor Godinlabe Xeraale iyo Dhuusamareeb ayagana u mahad celinaya aad iyo aad ayaan idinkugu mahad celinaya farxad waana farxad gelinaysa tilaabada la qaaday in baagagii la jeexjeexo macmalka in baraagaha xunka la xabaalo binooyinkii hore bina ka dambaysanayaan la ogolaan cid ka qaadi kartaa ma jiro deegaan kasta oo roobku ku da'ana waxay xaq u leeyihiin dadka deegaankaas degan inay wada daaqaan hadduu Cadaado ka da'o waa la wada daaqayaa hadduu Xeraale ka da'o waa la wada daaqayaa hadduu Caabudwaaq ka da'o waa la wada daaqayaa hadduu Galinsoor ka da'o iyo Gaalkacyo waa la wada daaqayaa hadduu Dhuusamareeb ka da'o waa la wada daaqayaa Soomaalida garan walaalayaal ilaahay ha looga cabsado ilaahayna ha looga baqo dhiigga muslimkana yaa la daadin waxaan leeyahay mar kale u celinayaa madaxweynaha dawladda galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor sharaf iyo karaama korkaaga ha ahaato dadkaagii baad u shaqaysay dadkaagii baad u danaysay waajibaadkii lagu dhiibtay baad gudatay waajibaadkaadii baad ka soo baxday waana u jeednaa waxa aad ka qabatay tilaabadii la qaaday shalay hawlgalku ilaa hadduu socdaa ilaa hadda hawlgalkii socdaa lagu burburinay meel kasta oo barkad laga maartay qoday